wafdigani maanta soo gaaray magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa uu isugu jiray wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya, guddiga doorashooyinka dadban ee heer qaran, xeer ilaaliyaha qaranka, taliyaasha ciidamada booliska iyo nabad sugidda iyo AMISOM. waxa uuna wafdigu markii uu soo gaaray magaalada Jowhar uu kulamo la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle, guddoonka baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed. ugu horeyn ayaa warbaahinta waxaa la hadlay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer qaran Garyaqaan Cumar Dhagey. ujeedada socdaalkan ayaa waxa ay tahay sidii xogaal ay ugu noqon lahaayeen qaybahaas oo dhan dhacdadii ka dhacday 18kii bisha 11aad November 2016 magaalada Jowhar xarunta doorashooyinka, taas oo saameyn ku yeelatay in hakad la geliyo doorashadii. sidoo kale waxa ayana guddiga maanta u yimid in uu la kulmo dhammaan musharaxiinta golaha shacabka doorashada u yimid si loogu akhriyo xeer anshaxa. ergaga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Majal Ketin ayaa asna warbaahinta la hadlay. Our message to the president but also to the CA. waxaan u imid magaalada Jowhar fariin aan u sido madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle oo ah inay xaqiijiyaan koontada haweenka, sidoo kale geedi socodka hanaanka doorashada aqalka hoose inaan wax ka ogaado. Which in Hirshabelle we hope means that madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Ali Cabdillaahi Cosoble ayaa sheegay wafdiga maanta Jowhar soo gaaray inay ka wada hadleen dadejinta doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee Hirshabelle. waxyaabaha ka wada hadalnayna runtii waxay ahaayeen guud ahaan geedi socodka howlaha doorashooyinka iyo howlaha la xiriira dhinaca maamulka cusub ee Hirshabelle sidoo aan baqaadi lahaa xaaladaha la xiriira dhinaca ammaanka, xaaladaha la xiriira dhinaca rajada guud ee aan ka qabno inuu maamulkan ay u suura gasho inuu shaqooyinkiisa inuu guto u dhaqaaqo. marka runtii wada hadal qiimo leh ayaa na dhex maray wafdiga ballaaran ee noo yimid maanta. ugu dambeyntiina waxaan isku afgaranay in hadda howlaha doorashooyinkana in la dardar geliyo oo ay qabsoomaan xuquuqdii ay dhinaca haweenka lahaayeen, sidoo kale in la ilaaliyo oo aan marnaba lagu xadgudbin, iyo in aan ka wada shaqayno sidii Hirshabelle maamulkeeda loo garab istaagi lahaa. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, Universal TV, Jowhar.